كلام إما هاد علينا علماء الدلك أو موضوعا أما موضوعيا عن كهذا الجونا يدنا دور شير كهذا لي وحكلان يدنا إما هاد علينا dadka baraha bulshada ku xidhan ee hadba wixii dadka mushkilad ka ah soo bandhiga ee ka hadla iyagana aad iyo aad baan waxaan doonayaa saaka inaan ka hadlo dhaqan xumo baryahan dambe inay u shaqeysa oo diinta meel ka dhac ku ah oo dhaqanka ku ah oo dadnimadeena ku ah intaba ku ah marka afar qodob oo culculus yaan doonayaa maanta inaan guud maro ama ka hadlo wixii su'aala idinka muuqdanaa waa iga weydiin kartaan kow afartaa qodob waxay dhaceen saddexdii bilood ee u dambeeyey ee sanadkan aynu ku jiro 2019 aan ugu horraysiiye ee julaay 12keedii ama 13keedii meelaha waxaa dhacay dayaxmadoobaadku markuu dhaco ama cadceeddu madoobaato dadka islaamka ahi wuxuu oogaa salaaddaa waxa la yahdaa khusuuf marka dayaxu madoobaado qorraxdu markay madoobaatana khusuuf baa la yahdaa salaaddaas ilaa intay caddaanayaan waa la wadaa waa meelaha dareemayso in islaamku uu yahay diin loo soo diray caalamka oo dhan waayo dayaxu wuxuu ka madoobaaday adduunka oo dhan cid xil iska saartay islaamka mooyaane ma jirta markaa dhacdadaas sidii caadiga ahayd salaaddii baa la oogay anigu hargeysaan joogay salaaddii markii subaxii ayaa nin qoraal qoray twitterkuu ku qoray isagoo aad mooddo inuu cid farriin u dirayo wuxuu yidhi ninkaasi xalay hargayse lagama seexan waxaana dadka hurdadii ku suququliyey masaajidada isagoo duraya ama eedaynaya qiraa'adii iyo qur-aankii la akhriyaya ee sare loo qaadayay isagoo dhibsanaya ayaa ninkaasi wuxuu yidhi dadkii hargayse hurdala'aan baa xalay ku dhacday masaajidadaana sabab u ahaa qoraalkaasuu twitterka geliyey dadkii markiiba dareen cadho leh ayay kaga jawaabeen dadku waa dad islaama ninkii wuxuu arkay in bulshadii ka hor timi oo dareen xun laga qaatay hadalkiisii runtiina uu ahaaba dabeetana wuxuu is yidhi dhinacay bulshadu u socoto isu daadraaciyo wuxuu hi raalligelin baan bixinaya markaana uu ka sii daray wuxuu yidhi waxaan ka raalligelinayaa dadkii dhibsaday hadalkayga hadalkii aan jeediyey ama qoray dadkii dhibsaday waan ka raalligelinayaa su'aal kalaa time waxa la yaad raalligelinaysaa diintaad meel kaga dhacday toobadkeen baad lahayd inaad ilaahay u noqoto weeye wax dadaho aad wax ku samaysay ma jirtee haddaad cid raalli gelinayso ilaahay ku abuurtay raalligeli waxaan ku dhaafayaa ninkaas oo dhowr jeeroo horena waxyaabaha noocaasa ku kacay oo diinta meelka dhac ku ah waxaan odhan lahaa cidda qura aad badbaadisaa ha noqoto naftaada iyo aakhiradaada kaasi waa mid labaad baan soo qaadaya gabadh baa halkan timi maqaal bay qortay maqaalkeeda waxay uga dhigtay ciwaan hablihii quruxdooda la qariyey waxay tagtay dugsiyada nuuradiin oo aynu ognahay kaalintay waxbarashada kaga jiraan waxay aragtay hablihii wada xijaaban dabeetana twitterkay ku qortay waxay tidhi hablahaas quruxdoodii waa la qariyey waxaa lagu khasbay jalaabiib dheer oo weyn oo aanay raalli ka ahayn baa lagu khasbay waxaanan ka xumahay bay tidhi dalkaygu intuu sidaa yahay inaanu horumar gaadhin xijaabka iyo asturaanta dumarka aayado badan oo qur'aana baa ka warramaya oo ilahay kaga warramaya suuratulaxzaab aayadda 8 ilaahay nebiguu ku amraya inuu ooryihiisa hablihiisa iyo guud ahaanba dumarka muuminiinta ah uu faro xijaabka suuratu nuur oo kale aayadda 31 ilaa aayadda 60 ayaa lagaga warramaya aayado badan baa ka warramaya xijaabka inantaas waxaa u jawaabay maamulihii dugsiyadaa lahaa ninka la yahaa mahad ibraahim twitterkaa la isugu jawaabay waxa yaab le mahad wuxuu ii sheegay markii dambe safaarada waaweyn baa soo galay buuhi arrintii oo twitterkii iigu soo hanjabay waxyaabaha ay yidhahdeen waxaa ka mid ahaa buu yidhi
dadkiina hablaha daboolaya marun baa dhici doonta qaynuunka caalamigaa lasoo hortaago safaaradaha reer galbeedka ay ahayn kuwii soo hanjiray ee qoraalka soo qoray waa dhacdooyinka inagu soo badanaya bishan august dhowr iyo labaatankeedii waa tii saddexaad aan raacinaye waxaa dalka lagu soo casumay oo xarunta dhaqanku soo casuumtay nin u ololeeya in raggu isfaraxumeeyo mala eray bixin kaa af soomaaliya kaga habbooni ma jireen dadka isku jinsiga ee isguursaday iyo waxaasay yidhaahdaan ereyga isku jinsina waxbaa lagu asturayaa guurkuna sax maaha ereyga oo guurku wuxuu dhex maraa lamaanee dhadig iyo laba ayaa guurku dhex maraa laakiin tan waxaynu odhan karraa waa ragga isfaraxumeeya ama dumarka isfaraxumeeya ninkaasi wuxuu dhashay dalka botswana waxaa soo casumay xarunta dhaqanka filim buu soo bandhigay dad ilaa 300 oo qof gaadhayaa ka soo qayb galay waxaa la waraystay guddoomiyaha xarunta dhaqanka su'aal baa lagu weydiiyey maxaa ninkan u keenteenoo wuxuu yidhi ninkan annagu war kamaanaan hayn wuxuu ka shaqeeyay laakiin waxaanu ku soo casumay buuggu qoray iyo filimkiisa haddana mar kaluu guddoomiyaha hadalkala shisheediye wuxuu yidhi muraadba kama lihiin annagu shakhsiyaddiisii annagu buuggiisuun baanu qiimaynay waa hadal aad loogu qoslo ninkayga suuqa joogaa ninkaan ogaaday ma waxaa layga dhaadhicin karaa ninka soo casumay warba uma hayn waa arrin qosol leh twitterkiisi baa la galay oo laga soo saaray anigu waan akhriyay twitterkiisa wuxuu ku qoray oo uu leeyahay markaannu ku guulaysanay dalka iyaga inaannu waddamada kale dariska iyaga aana gaadhno oo booqanno ayay nala noqotay xarunta dhaqanka ma aha markii koowaad ay qof noocaasa soo casunto waxaa ka horraysay gabadh iyana ingiriiska u dhalatay oo u dooda iyana in dumarku isfaraxumeeyaan ayay keentay markaana wasaaradda awqaafta laysla tegey culammadii magaalada iyo iyaga wuxuu codsaday inaanu waru haynin mar dambana aanay dhici doonin culammadii goobjoog ahayd bay ga warrantay xaruntaas oo in badan laga hadlay oo shacabku aad uga qayliyay runtii iyo culimmaduba dawladdu ma raba wax wara kamay soo saar bale iska daayay wasiirka arrimaha gudaha ayaa maalintii bugaagta la furayey hadal jeediyey aad mooddo inuu difaac ugu jiro xarunta wuxuu yidhi waana ka helaysaa youtube-ka haddaa baadhaan wuxuu yidhi dad baa xaruntan wax ka sheega oo wacaynkaa iyo wacaynkaa iyo wacaynkaa yidhaahdaa xaruntu hebel baa jooga hebel baa jooga oo hebel baa jooga xaruntu waxay ka shaqaysaa dhallinyaradana ay dhaqanka bartaa buuli wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin waxaanu leenahay dee xaruntu dhaqankay dadka dhallinyarada barayso dee bal aan isweydiino qoobaluudkiina way keentaye kaa laftiisu waa dhaqan dadka la bare bal hadda kaana iyana qorshaha lagu daro ta kale su'aalo badan oo laysoo weydiiyey aniga waxaa ka mid ahaa maxaa xarunta iyo ka dhaxeeya dadkan qoobaluudka waa arrin iyana u baahan in laysdul taago waxaa aad u cajiiba dalka aynu dariska nahay etoobiya oo 70% ama in ka badan kiristana ayaa bari dhowta is aadan ku shira dadka qoobaluudka laba nin bay soo direen kiniisadihii iyo shacabkiiba way kaceen dawladdu markay aragtay dareenkii dadka way joojisay shirkooda baa laga diiday innagoo 100% islaam sheeganayna oo islaama ayaa dhexdeennii maalin walba la leeyahay waxaa lagu soo casumayaa dad u ololaynaya qoomaluudnimo waxaa kalaan isweydiiyey marka ninkaasi 2 jeer buu ninkani yimi buugfeerkana uu ka soo qayb galay markan dambena wuu yimi buugfeerka imise qof oo kalaa yimi oo noocana mase la tuhmiba karaa inay meeshaba ku shiraan sanadkiiba mar waa su'aalo badan oo isweydiin leh taana waxaan odhan lahaa waxayna aad u cajiiba dawladda golaha guurtidu shalay waxay u yeedheen wasiirka awqaafta wiigga horena waxay u yeedheen wasiirkii warfaafinta waxyaabahan aan ka hadlaya marna lamay soo qaadin may weydiin xogagaal baanu ahay raggii goobjooggaaba iga warramay marnaba may weydiin waxyaaba kalea la isweydiinaya wasaaradda awqaaftu intay u jirto waa aragteen xarunta dhaqanka intay isu jiraan waa aragteen berigii hore aanu ka hadallayna iyagaaba difaac nala galay wasaaradda awqaaftu ilaa wasiirkeeda aad moodaysa inuu difaacayo wixii aanu ka hadlay ayaan darrooyinka jira ayay ka mid tahay
ilaahayna qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegay xumaanta haddii layska qaban waayo ama xumaan in yari samaysay inaanay intaa ku koobnaanayn ee ay gaadhayso ama ay saamaynayso in ka badan suuratu alafaal aayadda 5 ilaahay wuxuu ku leeyahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب inkastoo jihaadka laga soo warramayay iyo haddii islaamku fudaydsado ayaa haddana culimmadu markay fasilayaan waxay leeyihiin ka feejignaada ama ka baqda ama ka digtoonaada fidmo iyo masiibo aan ku koobnaanayn intii samaysay war haddaynu waxaa daawanno maxaa u malaynaysaa galab walba roobka halkaa maruu ka soo runtii waxaan isaa arbuu noqon dii laydinku khasifi lahaa dagaalladan sokeeyaanu ka qaylinayno waxaasoo dhammi haddaynu fitanka iska qaban weyna iyo xumaanta qoomam hore ilaahay inoo sheegay irbaaxooyinkii ku dhacay markii culimmadoodii iyo waxgaradkoodii ku daawaday kuwii xumaanta samaynayeen ayaa laynooga warramay irbaaxooyinkii ku dhacay qodobka u dambeeya afraad ee aan ku gunaanadayaa waxa weeye kan 2-3 casho ka hor isaguna soo baxay ee hablo marfish fadhiya ayilaya oo shaahii iyo falaasadii waxba hor yaalliin ayaa saxaafadda la soo geliyey dadkii su'aalo badan bay keeneen iyagoo isdiidsiinaya qaar waxay leeyihin tv-gaa khaldanee ha la xidho qaar waxay leeyihin war maye xumaanteenniyunbuu soo bandhigaye ma khaldana qaar waxay leeyihin waxan waa wax la sameeye wax jiraba maaha laakiin isu soo ururi fallaadhi gilgilasho kaagama go'daba dhinac markaad ka eegto dee habluhu lalaba yaabi maayo waxa raggu samaynayo dee dumarkaaga iyo carruurtaaduna khasab way samaynayaan marka waxaan ku soo ururin lahaa wixii su'aalaana hadday weydiinaysaan waa idiin furan tahay tix gabaya ayaan kaga baxaya anigu oo wakhti hore aan tiriyey laakiin mawduucyadan la xidhiidha waxay leedahay abeer ninka raadin jiray adeentida waa yaqaan markii arah loo tartamay af iyo laba daantasheen addoomba addoon wax biday kashana laga sii arraday asoolka markay janteen naftii uskag raaciyeen qof iyo aashii hadleen bulshada amar baa ku dhacay ugaadh diday bay noqdeen sibay u asqaysan yihiin rajiya amal baan lahayn ayaan kuna hiilin waa waxay ummaduhu dumaan akhlaaqda markay lushaan adduunka nin qooqayow ayaamo kalaa jiree ammaanada haysa siin ilaah waa laga baqaa aayaha waa loo tudhaa fircoon uubtuu ku dhacay ulbaa layskaga dayaa naftuna edab bay rabtaa